بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أن إن شاء الله تعالى العفة والحصانة دور صندة وحكمدة أي نكور رمضان أن قفك مسلم وحنا إلهي سبحانه وتعالى وفرين السمايه وحنا ولا قرب يا ولا جنهي السماينين waxaa lagu amray haddaad samayso ajar baad helaysaa, waxaa lagaa reebay haddaad ka tagtan oo ilaahay dartii uga tagtan aysana ajar baad helaysaa. labaduba waa ajar. alkafu can almuxaramaat, cifadu ama dhowrsoonnida aynu markaa sheegaynaa, culammadu way qaybqaybiyaan oo ilaa 4 qaybood bay ka dhigaan, laakiin innagu qayb ka mida baynu ka warramaynaa. mar waa cifa can اlإثm oo laba u qaybsanta, marna waa cifa can اlmuxaramaat oo laba u qaybsanta. innagu waxaynu ka warramaynaa alcifa can اlmuxaramaat. cifa can اlmuxaramaat, dhowrsoonnida uu qofku xaaraanta ka dhowrsado, marna carabkay ku saabsiisantahy, waa cifat lisaan, qofku inuu carabkiisa ilaaliyo oo waxa xun uu ka ilaaliyo. marna waxay ku saabsiisantahay cifat اlfarj aw xifd اlfarj, qofku inuu farjigiisa dhowro oo zine iyo xumo ka dheeraado. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishaة wasaaءa sabiila. ha u dhowaanina baa la yidhi, ha zinaysanina lama odhan, waxaa la leeyahay ha u dhowaanina zinada. zinada waxaa ka horeeya muqadamaat, waxay leedahay waxa la yidhaha dawaaci الzina, waxa qofka ku bixiya inuu waxa ka sameeyo, waxaa ka horeeya ka dheeraada baa la leeyahay ha u dhowaanina. haddaba dhowrsoonnida la dhowrsanaanayo, alcifa can الzina lala imanayo, waxay ka mid tahay sharcigii soo degay intii maka la joogay. inta badan tashriicaadku madiinay ku soo degeen, qur-aanka madanigaaba ka warrama. qur-aanka makiga inta badan caqaa'idda iyo akhlaaqiyaadku ka warrama. mas'alada tan ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka makigaabuu si xooggan ugaga warramaya. suwar badan oo makiya ayaa alle subxaanaه wa tacaala kaga warramaya. haddaba wax waliba mihaaladay ku fiican yihiin. nusuusta badan waa laga yaabaa inay in badan maqasheen. aan amhilada tilmaamo. suuratu taxriim, ilaahay wuxuu kaga warramayaa subxaanahu wa tacaala 6 haweena ayaa suuradda ilaahay kaga warramaya. 6 haweenaa lagu sheegay. 6da haweene suuradda tani ka warramayso, laba waa la waaninaya oo waa xaasaskii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wa ridwaan ullaahi calayhin. waa caaisha iyo xafsa oo waxoogaa isku dayey hinaasa intuu qaaday inay dumar kale nebiga ka dheereeyaan. labadaa ilaahay suuradda wuu ku waaninaya. waxaana looga warramayaa 4 dumar oo kale. 4ta dumar ee kale laga warramayo, 2 nebiyaa qaba, 2 nebi baa qabay, laakiin waa ahlu naar baa ilaahay ku tilmaamaya. waxaa la tilmaamayaa markaas jannada iyo wanaaggu waa waxaad shaqaysataa awalana. nebi baa i qaba, ama sheekh baa i dhalay, ama nebi baa i dhalay,
أما أن دالي السلهان لقوا بدبادي ما يهدار التوحيد هي طريقة صح عمري قرآن إلهي وحين وقور يا أنبياء عرفتوا دي وتاقوا يا اللومين نبي نوح علمه سوي يريا أو ديدو كبحصدي قرآن إلهي وقور يا نبي إبراهيم وأبيه لا هذا يا وديدي هل كان نوح على قور يا لبد مرة ولا بنبي قبيل وديدي أهل النار نقضي وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلهي وحط صالح دين سئنا يا بالي قال لماذا لبطوا الصالح امرأة نوح هوينيد النبي نوح قبي يا هوينيد النبي لوط قبي oo labaduba aanan biyada raacin ee ahlu naarka ka mid ah marka labadii haweeney nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam waxa la leeyahay dariiqa haddaa martaan ahlu naarka ku beerisaan weeyaan waxa kaloo ilaahay tusaale ku siinaya laba haween oo nabiga qabin laakiin ahlu janna waa weyn ka mid ah laba haweena idan qofku waa wadadu maray ku xidhantay dhaqanka iyo suluugu la yimaada bay ku xidhantay waxaa kaloo la tilmaamaya qofta dumar inay shakhsiya mustaqilla leedahay ninkeedoo nebiyana inay dariiqa dalaalka carari karto ninkeedoo fircawnana inay mari karto maxay dariiqa saxa ah وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فرعون كي قال لماذا بدنانا إلهي وحكا ورمي وهوين دو قبينا إسلامتي وإذا في عن كم النقطي قفك الدمر يلا بعد إلهي وقا ورمي هوين كي نبي هي مسلمين تقدم بيسبع مريم ابنة عمران وقبضنا قولي مقعيد قرآن كفصار ورأي مركب كوان لحية لباتن شربنا إلهي مقعيد قرآن كفشاق وقبضنا قولي لو أبتريي يدا قولي كما قرأي مع أبيه هيد باكو قرآن مريم دي عمران هيد با إلهي سبحانه وتعالى مريم ابنة عمران مريم دي عمران هيد با إلهي سبحانه وتعالى إذا وقفك الدمر مقعيد هذه الآخرية أجرك اللي هليه إلا القرآن كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام حرف كستوى أخرده 10 حسنات بعد يدبالي ما إذن اللي هو يدى ألف لام ميم حرف ما هي الألف حرف واللام حرف هي والميم حرف مريم بنت عمران مساجرات كيها ليس مقعيد مركز أخرده وميم راء ياء مقعيد وافر ابنة وألف يا باء يا نون يا طاء وعمران وعين يا ميم يا راء يا ألف يا نون انت سو أجرات ليس مقعد قول هذا أخرجه وقرآن هو أخرجه إذا هوين إذا تن أهوين تقوله مقعد القرآن كإلهي وكت المامي وهوين عباده يوناك عام بحضي عباده يوناك عام بحضي هل كان صفة الله كصفين يكواد وحويان إني تهي مد دورصون وفرجي هذا دورتي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها بيني مريم إن عمران هاي دورصناتي فرجي هذا دورتي بإلهي إلهي حمك دورتي تبتنا فنفخنا فيه من روحنا لأنه كوافوفنا الروح يجا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الرميسي إلهي كالمدهيسي هي كتبتي سيبا كم مد أهيد كوا قانتك كوا عباديسته كوا خضوعه وحيد هذا هلك كان قضاياتك عباداتك يا وامرتي الربية يفلسي وحلق سوهر مريه دور سنتين نواهدي هي حمها يكر دور سنتين سيدا أوجد أي قفك دور سندي سوى الدين ووحى إلهي كو أمانة يا مريم
quraan badan baa ilaahay kaga warramaya oo quraan madaniya iyo quraan makiyaba leh والذين هم لفروجهم حافظون إلهي مركو كورمي كل ليباني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلهي مركو شاقي كوا مؤمن كي ليباني صفات بالغوت المامي إني سلاد ودكو خشوعان إني اللغو يحما كديرادان إني الزكاة السمايان صفات كالغو شاقي وحكم ده والذين هم لفروجهم حافظون وكوا فرجقو الدوربا إلهي وحي حلاشة وأهم يعني وحكا لفرجقو الدوربا مرهاسا حقا دم الغوت المامي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جنة بوسكا وقصر ريا فردوس وأعلى الجنة جنة هلكا وقصر ريا كوا دحليا صفات كإليين إيه ونكسن إلهي وحكم مدرجي إن كمت حفظ الفرج إلا اللي والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kuwa dhowrsoon ee farjigooda ilaaliyay iyo kuwa ilaahay xusay iyo kuwii ka horreeyay baa ilaahay wuxuu sheegay kuwa in loo diyaariyay dambi dhaaf iyo ajar weyn inay aakhire helayaan waa la faray qof kastoo mu'mini inuu farjigiisa dhowro qul lilmu'miniina yagudduu min absaarihim qul lilmu'miniin waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi kuwa iimaanka laga helay indhihiina laaba dheh wayaxfaduu furuujahum farjigiinana ilaaliya dheh dalika askaa lahum baa ilaahay yidhi sidaas baa u tahaaro badan ama u fiicnaan badan haddaba mas'alada tan ajarka qur-aanka iyo axaadiista ay ku sheegayaan waa ajar hayru caadiya مثلا مالنتا قيامها ومالن عدق ومالن 50,000 سنة كنت أكون سنة ضوضة ومالن عد عدو دودي ومالن قفوا لباو لديد أيوه دنبقي سوينتو ليكا ومالن كديد بدن intaan janno iyo naarba la isla gaadhin kontonka kun sannadood ee halkan la jooga la isku xisaabinayo ayaa kadeeda kadeedkaasi dad baa jira ka badbaada iyagu dad baa jira kadeedka ka badbaada waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa toddoba ayaa maalinta qiyaama rabbi hooska geeya hay culimadu yidhaahdaan waa carshiga hooskiisa hadhka ama hooska carshuraxmaan toddoba qof baa iyagu maalintaa hadhsada oo ka badbaada qiyaamaha kadeedkiisa toddobadan waxaa ka mida dad acmaal waaweyn sameeyey waxaa kaloo ka mid ah dadka dhowrsanida un ku dadaalay dadka acmaasha waaweyn sameeyey maxaa ka mid ah alimaamu alcaadil buu nebigu yidhi imaam muslimka u taliyo cadaalad sameeyey ummad ninuu cadaalad sameeyey waa rajul cadiim ummad dhan ninuu cadaalad sameeyey waa mansiladii cumar iyo abibakar iyo ragga ahaa ay ku tageen wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaa imaamka caadilka ah wuxuu nebigu ku xigsiiyey oo imaamkaa ku daba naban mid isagu naftiisa ka adkaado dhallinyaro ah shaabun nasha'a fii cibaadati rabbi dhallinyaro ilaahay cibaadadiisa ku barbaartay in dhallinyaro ah dhallinyaradu waa fudayd dhallinyaronimadu waa fudayd laakiin ninka isagoo dhallinyaro ah waa yeelka noqday ee ilaahay cibaadadiisa laasimay
kaasi imaamka caadilka abuu la koox yahay waxaa kaloo nebigu sheegay qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay waa nin cibaado badan oo jamacaasi aanu dhaafaynin salafkii rag baa la sheegaa yidhaahdaa 40 sannadood allahu akbarta koowaad ee imaamku ima dhaafin jamaco qura maaha waa takbiiratulixraamka nebiguna muxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 40 salaadood ninka takbiirada soo gaadha 40 maalmood baan leeyahay 40 maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biiraynin xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam 40 yowman ninka takbiiratulixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nebigu ku tilmaamaya baraa'a min annaar baraa'a min annifaaq waa laba shahaado idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay wuxuu kaloo nebigu ku daray laba nin oo ilaahay dartii isu jecel wax kale oo ka dhexeeya aanu jirin laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keenaa ma jiro waxa isu keena wuxuu qofkaa ku jecel yahay uun ilaahay dartii inuu qof jidka wanaagsan maraya warajulaani taxaaba fi illaah ilaahay dartii bay isu jeclaadeen ijtamaca calayhi watafaraqa calayh taasunbaa isu keentay ku kala tagaana kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku diraan innagu kaynu u soconnaa waa kan ku xiga markaa dhowr kaluu nebigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin wax bixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey way yar yihiin dadka intay habeenkii istaagaan keligood cibaadaysta ee ooyaa way yar yihiin waa laga yaabaa jamacu markuu joogo imaam cod fiicana ku tukinaya inaad iska yaro khushuucdo ama ilmaysidba laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto warajulun ayuu nebigu ku tilmaamaya dakara allaha khaaliyan ilaahay xusay isagoo keliya cidila joogin fafaadat caynaah indhihiisu ooyeen waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadka maalinta qiyaame badbaadada noocaasii helaya rajulun طلبته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها نبغى حول النين أي ويردي قباره مرك هو النين رجولة دريمية مرك الله بعدنا نلاش عادي قاعد أنت بدل رجعهم قري بدل أو دكتور هادية ثاني وعكسها نين يسقي إلى صوت ضمطي رجل ay gabadhi hungurayso u yeedhay gabadhu gabadh caadiya maaha waa daatu mansabin wa jamaal waa gabadh quruxna leh xasabna leh ama manzila rafiica status leh social statuskeedu waa gabadh upper classka طبقة العليا كترسن إذا gabadhani magac iyo maamuus upper class ka ka tirsantay oo almasir ay hanti haysatana waa u badantay waa gabadh magac iyo maamuus bale quruxna la siiyay waa wixii qofku uu gabadh ku dooni lahaay oo dhan ayay u muuqataa laakiin ku jawaabay buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam inni akhafu allah gabadha ilaahay baan ka cabsanayaa yiri ilaahay dartii uga tagay dad xumaha ilaahay dartii uga tagto waxa uu nabigu tilmaamayaa maalinta qiyaame ee dadku kadeedku haysto inta kadeedka ka badbaaday inaad ku biirayso inta carshu raxmaanka harsanaysa inaad ku biirayso waxa kaloo quraanku inoo sheegaya fadiilada sare dadka helay nabi kamida yani iyadoo practical markan iyadoo theory la sheegay laakiin iyadoo practical ayaa ilaahay qisada hadana quraanka inoogu soo arooriyay nabi yusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana qola socotay heshay ay iibsatay
boqorka laga iibiyey gurigiisii imraatul casiis loo geeyey nebi yuusuf markaa guri buu ku nooliyey ninka meesha maamulo gurigiisiiya gabadhuu qabay oo culamaadu tafsiir ay yidhaahdaan gabadh qurux badan bay ahayd suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nebi yuusuf hunguraysay nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday hunguri qura maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay yidhi albaabadoo dhan way xidhxidhay waraawadatu alatii huwa fii beytiha raawadatu waa doondoontay baa la yidhi almuraawada waa xodxodatay si kastoo ay u heli lahayd waxaa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab albaabadana way xidhay lama odhan qallaqat waa xidhxidhay intay adkayn karaysay oo meel uu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay kadib baa waxay ku tidhi hayta lak soo dhow adaan diyaar ku ahay bay leedahay inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishoodunbaa ku jira inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kani ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya waa gabadha lafteedii markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyadaa sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariibku ma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad sodhanaysaa dee malaa waad fasaxan tahay laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad siro dhudhubayaad ceeboobin baad is leedahay cidlada laakiin lama ceeboobo socankaa maaha ama meel aan cidibo kaa garanayn markaad joogto lama ceeboobo nebiyullaahi muusa nebiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo aabihii reerahoodii waa laga keenay meelaa cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waan cidi garanaynin buu joogaa waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhami jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyahay de waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxaa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zino ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoon oo magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leedahay iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysaa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 masalo tiriyaayo uu leeyahay waa dawaacu zina baa qisada tan ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaada allahi innahu rabbi axsana mathwaaya innahu laa yuflixu الظaalimuun wuxuu ku jawaabay qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyahay waxaad sheegayso ilaahay qofka mu'minka ahi yatacawad qofka mu'minka waxaa caado u ah inaanu xooggiisa qura ku kalsoonaanine rabbigii inuu magansado wax kasta inuu rabbigii magansado iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaa wadaanu kaa kaalmo dalbayna acuudu billahi min ashayطaani الrajiim atacawud xumoo dhan wuxuu leeyahy macaada allah ilaahay buu magan gelaya waxaanu tilmaamaya innahu rabbii axsana mathwaaya innahu rabbii damiirka inaad alle u celiso oo ah ilaahay waa i nimceeyo god buu iga soo saarayo waa dhibtii rabbiga iga soo saaray ee nicmadana siiyey macaasidiisa ugu abaalgudi maayo yani sideedaba hadduu qof wax ku siiyo qofkaa waad jeclaanaysaa waa dhaqanka aadanaha si qaabka ilaahay u abuuray hadduu qof wax ku siiyo waad jeclaanaysaa
qofku marka hadduu gallad iyo lib kugu leeyahay haddii aanad waxba tari karin cala laqal agtaada lagu xuman maayo ka warran qof hadduu wax ku siiyo oo wixii uu ku siiyey aad u adeegsato saad isaga u dhibi lahayd kaa dadku waxay yidhahdaan waa maxay waa la'iin oo qof xun qof aad wax siinayso oo haddana wixii aad siinaysay ku talagalay inuu adiga kugu dhibo dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqannay ilaahay kula dhaqannaa waa nooca ilaahay baa ina nimceeyey caafimaad ina siiyey waxa kalena siiyey awadan le wax walba le wixii uu inagu nimceeyey buu wuxuu yidhi bes waad mahadsantahay uu inagu dhaha cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantahay ilaahay aynu u mahadnaqayno halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u faalxun nabiyullaahi yuusuf markaa wuxuu leeyahay macaad allahi innahu rabbi axsana mahwaaya innahu laa yuflixu الظaalimuun ilaahay baan magan galay rabbigay meesha way wanaajiye ظaalimkuna ma liibaano mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraane waxay leeyihiin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinayaa ninkan abaalka ku leh waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilkaa ilaali buu ku yidhi saa suuradda ilaahay kaga warramaya akrimi mathwaahu meeshaad dejinaysa iyo waxaas hore karaamee buu ku yidhi markaa odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerka iyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawe ma ihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto inaan xaaskiisa u weydaartaa innahu rabbii buu leeyahay innahu rabbii waa kii ii barbaariyey oo axsana mathwaaya akrimii mathwaahu waatii uu yidhiye waa axsana mathwaaya buu leeyahay degaankaygana fiicnaysiiyey marnaba dulmi maayo buu leeyahay innahu laa yuflixu الظaalimuun idan nebiyullaahi yuusuf waxaa ilaahay tusaale qur-aanka ugu dhigay ee tusaalayaasha waaweyn ee nebi yuusuf laynooga soo siiyey ay ka mid tahay cifada weliba cifatu lisaan iyo cifatu farji labadaba nebi yuusuf waa laga soo naqlinaya walaaladiisii wixii la ogaa ku sameeyey ee yidhi tuug buu ahaa iyo in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl ilahay wuxuu yidhi faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu xataa inuu ku yidhaahdo waar idinkaa tuuga wuu ka xishooday cifatu lisaan carabkiisuu dhowray halkana farjigiisuu dhowray markay aragtay inaanu oggolayn ayay waxay isku dayday inay kufsato inay xoogto arrinku hayta laka soo dhaaf markan xoog buu marayaa waxay isku dayday inay xoog ku qabato xal kale markaa muu hayo wuu cararay cagtuu miciin biday inuu ordo oo baxsaduu isku dayay isagoo ordaya iyana ay eryayso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeenna arrintiiba way rogto waxay tidhi maa jazaau man araada biahlik suu'an ilaa an yusjana oo cadaabun aliim waa maxay abaalmarka bay tidhi ninka reerkaaga xumaha la doonay in la xidho iyadoo boqorka waddanku ama madaxweynaha waddanku haweenaydiisa lagu yidhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana si aad uga soo baxayso cidi garan mayso haddaad boqorku xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryayaa muxuu ilaahay weydiisanayaa rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh iyadu fadalika aladii lumtunanii fiih walaqad raawatuhu can nafsihi faاstacsan bay tidhi walain lam yafcal maa aamuru layusjanan haddii waxaan rabaa uu samayn waayo bay leeda waa la xidhi kuwa la dulleeyena wuu ka mid noqon haddii lagu yidhaahdo xabsi iyo kala dooro hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo
qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysaa nebi yuusuf markaana xabsigu doortay inaan rabbi caasiyo ayaa wax walba ka xun buu leeyahy saa daraaddeed wuxuu leeyahy rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badanya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahy ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa marka weliba wuxuu uhi wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhina waakun min aljaahiliin ilaahu haddaanad makrigood iyo khiyaamadooda iyo dhagartooda haddaanad adigu i dhaafinin waa i lagdayaan buu leeyahy aakhirka hadday dhacdo taasina wax magaratadaan ku biiraya yaa jaahila qof kastoo ilaahay caasiyaa jaahila jahligu macluumaadka maaha cilmigu macluumaad madaxaaga ku jira maaha cilmigu waa dhowrsan waa inta aad ku dhaqantaa cilmiga intaad rabbi kula weyn yahay ee aad maxaarimtiisa ka gaabsanayso ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey aanad ugu abaalgudayn inaad macsidiisa ku samayso saa daraaddeed buu nebi yuusuf wuxuu leeya ilaahu xabsiga ayaa dhaamo waxay igu yeedhayaan haddii aanad adigu i dhowrinna waa jabaya ilaahay wuxuu leeyahy fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahun ilaahay ducadii buu ka aqbalay ducadii markii laga aqbalay maxaa loo sameeyey xabsigaa la geeyey idan ducada laga aqbalay waa maxay xumaha iyo xabsiga xumaha xun marka kan xabsigani waa xal oo xumahaasaa ilaahay soo dhaafiyey dabeetana xabsaa la keenay xabsigaa ilaahay sii dhaafiyey oo maxaa laga dhigay madax ilaa uu ka noqday wasiirka waddanka ka taliya ilaa uu markii dambe gaadhay waa dhowrsooniduu dhowrsanaadaa dariiqaa keentay u furtay haddaba ayuha alaxiba nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa man yadman lii bayna laxyay wamaa bayna rijlay yaa labadiisa daan inta u dhaxaysa ii damaano qaadaya inuu ilaaliyo iyo labadiisa adin inta u dhaxaysa waa carabka iyo farjiga nebi maxamed baa wuxuu leeyahy kumaa damaano qaadaya inuu carabkiisa ilaalinayo waanu xumo kaga dhawaaqaynin farjigiisa ilaalinayo waanu xaaraan ku doonanaynin hadday damaanadaa inagu la nimaadno nebi maxamedna wuxuu leeyahy adman lahu ljanna anna janno ayaanu damaanad qaadaya xadiidka bukhaari haddaa idinku saa samaysaan oo aad ballankaa ka soo baxdaan anna waxaan idiin ballan qaaday buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inaad janno helaysaan idan dhowrsoonidu waa cibaada kaa habeen oo dhan taagan waad gaadhi kartaa haddaad carabkaaga iyo farjigaaga kuwa dhowro ka mid noqoto haweenkana waa kii nebigu yidhi haweenaydu hadday shanteeda tukato bisheedana soomto farjigeedana ilaashato ninkeedana adeecdo albaabada jannadaa la yidhaha kaa doonaysa ka gal jannadu 8 albaab bay leedahay albaabba dad gaaraa ka gala albaab mujaahidiintaa ka gala oo albaab asxaabu sadaqa ka gala oo albaab asxaabu salaabaa ka gala waa albaabo takhasusaadkaa kala leh albaab kuwa sooman baa ka gala baabirayaan abubakar markuu nebiga weydiiyey ma jiraa qof albaabadaasoo dhan ka gelaya wuxuu nebigu ku yidhi haa waxaana la arkaa inaad adigu ka mid tahay buu nebigu ku yidhi idan mansilada abubakar bay gabadhani ka daba tegaysaa waayo waxaa la leeyahay albaabkaa doonto abubakar wuxuu lahaa 8 albaabba mid looga yeedhayaa ma jiraayo nebigu haa buu yidhi adigaa la insha allah adigaa ka mida buu tilmaamaya haweentanna waxaa la leeyahay ayu abwaab aljanna baa la odhanayaa shi'ta ka gal kaa doonto oo maxay samaysay waxay samaysay inay salaad tukatay oo soontay ninkeedana adeecday farjigeedana ilaashatay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba inaad farjiga dhowrtaa wuxuu ka mid yahay cibaadaadka baryada lagu aqbalo ma rabtaa inaad mustajaabu dacwa noqotid dadku waxay dhahaan iyo ilaahay in badan baan bariyo wixii aan weydiisanayay maan arag ma rabtaa in laga aqbalo saama jecesha in baryadaadu cinda allaahi maqbuul ay noqoto albaabada alle ay kuu furan yihiin waxaa ka mid a waxyaabahay ku furmaan
qofkoo wuxuu cunayana ilaaliya farjigiisana ilaashada nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay 3 nin oo safar galay oo buur roob ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuralayda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyn way daataan qaar buu ciid yara haysuu qodaa dabeetana dhagxanta way soo dulcoodaan nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunbay dhagax ku soo dulcoodayo afku ka daboolay buur cidla ah god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax ku ood safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysaa toona aanay jirin laa mobile baan jirin walaa wax kalaan jirin suu ninkani uga baxa xeelad kale markan dhammaata ayay 3 nin yidhaahdeen waryaa nin walowba bal wixii aad sileeday camal wanaagsan buu hayo ilaahay aad ugu dhowaanaysay alla ku bari 3 nin mid waliba camalkiisu ilaahay ku bariyay mid wuxuu ku bariyay rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalmaha ka mida xoolaha markuu soo xareeyo carruurtiisa iyo reerkiisa intaan wax siin ayuu waalidkii iyo da'a wax siin jiray maalintii dambe xoolihii fogaadeen goor dambuu yimi wuu soo lisay markuu la dil yimi buu yimi labadiisii waalidoo hurda dabeetana wuxuu is yidhi carruur iyo cid toona waxaa siinay waalidka u horraysii wuu la dul fadhiistay inta badan dadka waaweyn hurdadoodu dawa iska 20 daqiiqo qofka markuu daa gaadho wuu yara seexdaa waa soo toosaa waa yara seexdaa waa soo toosaa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waayey sidoo ula dul fadhiyay caanihii baa waagu u baryey caanuu xalay lisay oo islaha mar uuna indhaa kala qaadan hana toosinin hurdadooda ha iska hurdaan laakiin markay indhaa kala qaadan aad siisid buu lahaa dabeetana waagaa ugu baryay siduu ula dul fadhiyey dabeetana ilaahay buu baryay wuxuu leeyahay yaa rabbi waad ogtay inaan dartaa sidaa u samaynayay oo aan waalidkay sidaa ugu samafalayay ilaa u dhagaxaa naga fayd buu yidhi dhagaxii in buu hanqada laakiin in laga bixi kara maaha mid kale ilaahay baryey wuxuu ku baryey inuu shaqaale u shaqeeyeen oo dabeetana xoolahoodii uu siiyey oo midi uu ka tegey xoolihii uu midi qaadan waayey oo ninkii iska tegey oo beri dambe uu soo noqday oo yidhi warriyo xoolahayga isii wixii aan kuugu shaqeeyey isii dabeetana xoolo buur dhan daaqaya ayuu yidhi aniga halkaa daaqayoo dhan adaa le kaxayso war igu cayaarinaya intii maalintayduunaan shaqaystay intayduunu sii buu leeyahy wuxuu yidhi intaad shaqaysatay xoolihii aan rogrogayay ku biirtay dabeetana intaasay kuu goysay wixii aad ka tagtay wakaase ilaahu waad ogtay buu leeyahay ammaano daraaddeed ninkaa waxoogaaga yar ii dhiibtay wixiisii intaan u badiyey oo u rogrogay inaan adiga daraadda u siiyey waxaasoo adduuna ammaanu sheeganaya ilaahu naga fayd in kalea ilaahay ka fayday weli lagama wada bixi karo saddexdu xadiisku waa kala horraysiinayaaye siduu kala horreeyay umayna sheegine kanka saddexaad wuxuu sheeganayaa gabadh in adeertiiya oo uu jeclaaday inay jirtay dabeetana gabadhaa inuu isku dayay si kasta inuu ku helo way diidday gabadhii diidday oo abaari ku dhacday oo baahan baa u timi markaan abaar baa hayso waa baahatay dabeetana wuxuu yidhi sukay dhiib xoolana waan ku siinaya wuxuu u ballan qaaday inuu nuskiilo dahab u siiyey nuskiilo dahaba nuskiilo dahabi waa mise de waa kuus dhan oo lacaga waa xoolo aada u badan nuskiilo dahaba buu siiyey inay isu dhiibto gabadhii waa hanjabtay waa iska aqbashay laakiin haddana weli ilaahay bay xasuusantahay baahina waxan way ku kaliftay iyadoo dahabkiina haysaba waxay ku tidhi waryaah war ilaahay ka boqo oo meeshaasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyn ittaqi illaah bay ku tidhi ereygaasaa madaxiisa galay ittaqi illaah war hooy ilaahay ka cabso ayay ku tidhi dabeetana maradiisu dib u xidha uu iskaga tegay dahabkiina wuu siiyey
xumihiina waxa ka kaxaysa in lagu yidhi maxay ittaqi illaah ilaahay ka cabso ilaahay buu bariyey ilaahay camalkaasu ku baryaya ilaahu adiga daraadda inaan zinadaa uga tegay dabeetana ilaahay dhagixii uu ka fayday idan saddexdan nin mid ka mida ducadiisa waxaa lagu aqbalay maxay inuu farjigiisa dhowrtay qiso kale oo xagga haweenkaana aan mid sheega ma laha nebiyullaahi ibraahim ayaa hijrooday isagoo ay la socoto haweenaydiisii saaro la odhan jiray saarina gabadh qurux badan bay ahayd waa nebi isxaaq hooyadii iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqorrada ka mid uu ka taliyo boqor aada u dhaqan xun buu ahaa gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeyaa gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa waa in loo geeyaa nebi ibraahim oo safara haweenaydiisiina wata haweenaydiisuna oo gabadh qurux badanoo saare la yidhaahdo ayay meesha yimaadeen dabeetana nebi ibraahim baa gabadhii laga qaada boqorkaa loo geeyey nebi ibraahim baa loo yeedho wuxuu ku yidhi man haadihi alatii macak waar tan kula socotaa maxay ahayd nebi ibraahim wuu ka cabsado wuxuu yidhi waa walaashay dabeetana waa la soo daayay iyaduu yidhi keena nebi ibraahim iyadii buu la hadlay wuxuu ku yidhi na waa walaashay baan ku idhiye haybeenini gabadh kastoo aroosuu ninkani qaataa waxaan ku idhi waa walaashay waanad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeennuunbaa wax muslima jooga innagunbaa walaala cid kale oo in loo walaalle ma jirto ee haybeenina sidaa adna yeel buu leeyahay adna waa walaalkay dheh waa loo keenay markii loo keenay ayay tidhi in yari sug waa weysaysatay dabeetana salaad bay tukatay dabeetana ilaahay bay barayday ilaahay maxay ku baryaysaa allahuma in kuntu aamantu bika wabirasuulik waaxsantu farji u fiirsa tacbiirka waxay leedahay ilaahayow haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday ninkayga mooyaane aan cid kale weligay taaban falaa tusallit calaya hada alkaafir ilaw gaalka ah igu ibtilayna waa weysaysatay waa tukatay ilaahay bay bariday ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuhaa billaahi wa birasuulih rumayntay alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag ilaahu gaalka ah igu itixaamin bay tiri gaalkii baa suuxay markuu suuxay ee nafti isugu timi waa labadooda ayaa istidhi oo hadday naftu ka baxdana soo la odhan maayo iyadaa dishay ilaahayow ha igu dilin bay tihi illa waxaa ka baqaysaa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay haddana ilaahay bay barido waxay tidhi ilaahu kici wuu soo kacay axmaq buu ahaaye markaasuu haddana isku soo maqiiqay waar bal yara sug bay tiri oo waa weysaysatay waa tukatay salaad kalay gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday intii ileg alle ku bariday haddana dib u suuxa naftu markay qabatay bay istidhi war haddana waa lagu qabsan doonaa ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo waa soo kacay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen mar saddexaad ba haddana isku dayay ilaahay bay haddana bariday waa miyir beela waa suuxay haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin ee uu ka kaco uu ka kacay mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen dabeetana haajara nebi ismaaciil hooyadii ayuu ku daray wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqayse kaxayso nebi ibraahim taana qaada buu yidhi weliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso waa haajara nebi ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta waa ninkan baa markaa soo siiyey ee nebiyullaahi ibraahim xagga kalena nebi ibraahim bay u timi oo wahuwa qaa'imun yusalli isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya
iyana way taagnaydoo ilaahay bay baryaysay isna xagga kaluu taagan yahay salaadu taagan yahay oo rabbigii baryaya in ilaahay haweentiisa uu badbaadiyo idan ayuha alaxiba waxay leenahay haddaad rabto in ducada laga aqbalo waxyaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mida markaa dhowrsanida farjigaaga uu dhowrsanaaday kuwii godka galayna ilaahay kurbada waa kaga fayday gabadhii boqorka dhami uu ka haystayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyey waxaan ku soo koobaynaa marka dhowrsoonidu diintay ka mid waxyaabaha jannada lagu galay ka mid waxyaabaha firdowsi laclaa lagu helay bay ka mid waxyaabaha qur-aanka ilaahay nebigu ammaanay nebi yuusuf ha ku ammaanay bay ka mid haweentu ammaanay maryamata bnu cimraan ilaahay ku ammaanay bay ka mid tahay walidaalika qofka muslimka ah waa inuu dhowrsanaadaana muqadamaad bay u baahan tahay kow calaaqadaad ilaahay la leeday waa inay xoogan tahay haddii kale shaydaanku ugu duufsanaya rabbiga iyo weynidiisa iyo cadamadiisa inaad xasuusantay janno iyo naar inaad rumaysantay man kaana yuuminu biاllahi walyawmi alaakhir baa uu nabigu leeyay markii ilaah iyo rasuulba rumaysanay sidaa ha yeelo qur-aanka ilahay wuxuu leeyay dalika yuucadu bihi man kaana yuuminu biاllahi walyawmi alaakhir saas waxaa lagu waaninayaa kuwa ilaah iyo rasuulba rumaysan iyo maalinta aakhiro idan inaynu dhowrsanaana waxay u baahan tahay idin dhex maraya haweenkii nebigu qabay maxaa lagu yidhi falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi marad hadalka ha jajabinina hadday noqoto inaad dumar wada hadashaan si rasmiya ula hadal oo sida rasmiga ah iyo hadalka wax ku lifaaqan yihin waa kala laba qofku markaanu dan lahayn gabadha dukaanka markay soo gashay alaabta laga iibinay waa imise iyo waa intaasaa la is idhaahdaa waa hadalaan dan laga lahayn laakiin haddaad hadalka jajabiso bal warrama iyo reerihiisay ahaayee war kale aad bilowdo waa maaha dariiqii saxa ilaahay markaa haweenkii nebi maxamed qabay waxaa lagu yidhi falaa takhdacna hadalka ha jajabinina baa la yidhi ma aamusaa lagu yidhi maya waqulna qawlan macruufa baa ilahay yidhi hadal fiican dhaha hadla baa la yidhi laakiin hadalka jajabani ma bannaana waxaa la faray haweenku si ay u dhowrsanaadaan iyana inay xijaabtaan asturkooda inay qaataan waxaa la faray quruxdooda inaanay dabadda soo dhigin walaa tabarajna tabaraja aljaahiliyati اluulaa sidii dadkii gaalada hore isu soo bandhigi jirtay ha isu soo bandhigina baa la yidhi waxaa la faray si miyir leh inay u socoto oo maxaa la tilmaamaya cagaan dhulka ha ku garaacina iyo waxaa gashantii dunidaynu maanta joognaana waa alcaksu almughriyaat waxa la yidhaahdaa jira waxaa jira niman ay yidhaahdaan style engineering or design engineering waa dad iyagoo u lacagta badan leh maxay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan si dadka loo lumiyo waxaa la ogyahay qofka bini aadamka ah ee ninka ah waxay yidhaahdaan daymadiisa maskaxeed waxa ugu badane soo jeediya waa qof dumar ah qofka dumari waa waxa ugu badan bay yidhaahdaan ee intibaaha qofka soo jeediya markay taa ogaadeen ayay u adeegsadeen waxa xun oo dhan haddii taayar la xayaysiinayo imika tv-ga gabadh qaawan baa horta soo boodaysa gabadh iyo taayar maxaa ka dhexeeya waxay ahayd haddii taayar la xayaysiinayo gaadhi dheerayn iyo waxaa in layna tusabay ahayd soo maaha wax kasta oo la xayaysiinayo mostly cidda wax xayaysiinaysa waa qof dumar ah waay waxaa la ogayay rag oo dhami inuu dumar eegayo waa wax ilaahay ku abuuray rag oo dhami inuu dumar xaggooda eegayaa la ogayay waxay ogyihiin kabaha raggu iyo kabaha dumarku lama odhan kab iyo kab weeyaan isku nooca noqda ma kala nooc dumarka kab dheer baa la sudhaa kab kastoo dumarku leeyihin inta badan waa ka cidhib dheertay kabta ragga waayo waxaa la rabaa tamaayo markay soconaysa inay dheeldheelido hadday si caadiya u socoto jidhkeedu dee si degan buu u soconaya laakiin in balanska la lumiyo ay dheeldheelida kabtan fiiqan loogu xidhaa kabaha dumarku inta ugu badan le dhammaantood way sanqadhaan kabaha ragguse ma sanqadhaan nin hadduu dhabarkaaga maraya garan maysid gabadhi hadday maraysa laakiin haanadaa bay ku leedahay way kan waad maqlaysaa qodho 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 waad soo jeesanaysaa yacni waxa kan bilaash looma samaynin waxaan la wado oo dhammi
وإن حماها الله فافيه ومغريات ووحلالية وحي قفك منكم مركو حرقونيو حتى كقال كامركو حرقونيو شركو دنبو أسطرة نinku waa inuu suud xidhaa koor xidhaa tay xidhaa meel muuqataaba ma jirto inta yare wajiga mooyaane gabadhu laakiin markay xaragoonayso maxaa lagu sameeyaa bal nin iyo gaal iyo gabadh nin iyo gabadh gaal oo xaragoonaya labaduba arag gabadhu mara gaaban ama goono halka joogta ama mid tafta ka dilaacsan halkan joogta ama mid naasa ka dilaacsan maradu iyadu ma astura ninku se wuu wada asturan yahay waa cagsigii labada ragga cawra yara waxay heleen dumarku maxay ay asturnaadaan diimahoo dhamina dumarka way asturaan ma jirto diin dadka qaaw dumarka qaawisa diimihii samaawiga ee la yaqaanay idan waxaan uga dan leeyahay mughriyaadku hadda way sii tirabateen gabadhu waxay noqotay wax lacag lagu raadiyo silca wax la iibiyo gabadh kasta waxa la raadiyaa marada meesha ay u qurux badan tahay marka tii kaliyaha uu qurux badan le kaliyaha la dalooliya tii naasaha uu qurux badan le naasaha loo dalooliya tii luqunta uu qurux badan le luqunta tii qaarka hoose uu qurux badan le qaarka hoose loo jeexjeexa gabadhu halkay u qurux badan tahay inay banaanka timaadaa that's the style design kan lagu sheegay waa inta waa inuu engineer kan wax sawiraya garan kara qofta dumar ee halka u qurux badan le say quruxdeedii soo bandhigi lahayd idan ayuha alahibba dhul gaaleed baa joogtaan waa marka koowaad meel aan zimanadu ceeb baahayn baa joogtaan waa marka labaad waa marka saddexaad ay idina qariib baatiin meel aydan ceeboobayn baa joogtaan waxaa u baahan tihiin inaad dhowrsanaataan inaad diintiina dib ugu noqotaan waxaa u baahan tihiin inaad garataan inay diintay rabbi loogu dhowaado janno lagu galo waxa kale dhowrsanidu inay diinta ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala walidalik waxaa layna afaray si dadku u dhowrsanaado wixii guursan karayo guursada baa layidhi yaa macashara shabaab man istataaca minkum albaa falyatazawaj nin kastoo dhallinyaro guursan karo guursaa la yidhi waxaa layna faray inta waxaysataa xataa kuwa kale inay guurka ugu gargaaraan waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum u guuriya baa la yidhi kuwiina waxaystaana waa baahi bini aadama buuxiya idan warka waxaan ku soo koobayaa wiil kastoo yidhaahda waan isxijin kari waaye aakhire nebi yuusuf baa ku markhaati furaya in la isxijin karo gabadh kastoo tidhaahda waan isxijin kari waaye maryama aakhire ku markhaati furaysa in la isxijin karo laakiin maxaa loo baahan yahay iimaankaagu inuu xoogoobo meelaha fitnadana inaad ka dheeraato oo dhulka khayrka iyo wanaaggu yaallo inaad u badatid sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin